dunida muslimiinta mawduucyada dadka sida aadka u hadalhayaan waa dhacdooyinka Falastiin iyo dulmiga Yahuuda. Madaxda adduunkuna cambaarayn xoog badan iyo in dagaalkani si degdeg ah loo joojiyo ayay ku baaqayaan. Dadka oo dhanna waxa ay sugayaan tillaabada madaxda dowladaha Islaamka ay ku dhaqaaqi doonaan. Sababtoo ah waxaa daafaha adduunka laga helayaa heerka qiirada muslimiinta kumanaan dhalinyaro ah oo si xor ah u raadinayo waddo dhulka Falastiin ay ku tagi lahaayeen. Tanina waxaad ku arki kartaa aragtiyooyinka dadka social media ay ka dhiibanayaan iyo banaanbaxyada ay sameynayaan, iyada oo waliba dadku COVID-19 ku iska hilmaameen. Dadka arrimaha siyaasadda iyo saadaashaba ku fiican waxa ay qiyaasayaan dagaalkani inuu yahay mid Falastiiniyiinta miro fiican u dhali doona bilooyinka ama dhowrka sano ee soo socda, ugu badnaan ilaa 2035. waxa ay muslimiintu ku dhaqaaqi doonaan Israa'iil wax ay weligeed ka baqan jirtay, dowladaha galbeedkuna ay aad u dhibsan doonaan. Israa'iil ma ay jecla muslimiinta in ay midoobaan ama in askar gaar ah ay samaystaan, waayo tani haddii ay dhacdo waa burburkii Israa'iil. Ururka Iskaashiga Islaamka munaasabadda ciidda kadib kulanka ay samayn doonaan, waxyaabaha muhiimka ah ee ka soo bixi doona waxaa ka mid ah ay dadka qaarkood leeyihiin sida hadda kadib dhibaatada Yahuudda loo yarayn lahaa. Sababtoo ah Yahuudda mar walba tillaabo yar ayay dhulka iyo Falastiin u soo qaadaa, kadibna dhul ballaaran ayay sidaa ku qabsataa. Sida haddaba fitnada ka dhalatay dowladda Israa'iil ayaa dhul Falastiiniyiintu ay degnaayeen ayaa wax ay ku amartay in si degdeg ah dhulkaasi Falastiiniyiintu ay uga baxaan. Markii Falastiiniyiintu arrintan ay ka hor imaadeen ayna u istaageen in dhulkoodii ay difaacdaan, go'aan cad ayay dowladda Israa'iil soo saartay in si qasab oo xoog ah Falastiiniyiinta halkaa looga saaro. Waxa ayna Israa'iil halkaasi ay doonaysa inay dejiso qoysas Yahuud ah. Dagaalka halkaa ka bilowday ayaana sabab u noqday in magaalooyinka kala duwan inuu ku baaho ilaa maantana uu soo gaaro. Waxaa guula maanta social media sidii waagii hore inuusan ahayn. Waagii hore dulmiga Israa'iil si toos ah loolama socon jirin, dunida muslimiintuna in badan oo dadka ka mid ah ma aysan maqli jirin waxa Israa'iil Falastiiniyiintu ay ku samaynayso. Laakiin hadda in ilbiriqsi walba si live ah loola socdo, dareenka iyo shucuurta muslimiinta inay kacdo oo diyaar ay u noqdaan in wax ay sameeyaan ayay sabab u noqotay. qof walibase hadda wuxuu isweydiinayaa Israa'iil maxaa lagu samayn karaa, sideese dulmigani looga joojin karaa. waxa ay u badan tahay ururka Iskaashiga Islaamka in kolkani ay keeni doonaan sistemka khilaafada. waxaa la arki doonaa muslimiinta oo dib khaliifo ka samaysanaysa, laakiin khaliifaduna taariikhdii hore midii lagu yaqaanay gebi ahaanba way ka duwanaan doontaa. System waxaa la samayn doonaa ciidamo qaas ah oo muslimiina oo ilaalin doona Falastiiniyiinta iyo difaaca bariga dhexe oo dhan u istaaga. Israa'iilna tilaabo yar haba noqotee ma ay awoodi doonto in dib dambe Falastiiniyiintu dhinac xitaa inay u fiiriso. Ciidankani la aasaasi doonana ma uu noqon doono sida ururada gaarka ah ee maanta aynu naqaano oo kale, waayo ururada noocani oo kale haddii ay noqdaan si degdeg ah dowladaha galbeedka waxa ay ururkaasi ku dhajinayaan magaca argagixiso iyo waxyaabaha la midka ah. Ciidankani ilaalinta Falastiin iyo bariga dhexe loo aasaasi doono waa ciidan dhinac qaramada midoobayna ka sharciyeysan. waa sida ciidanka Amisom oo qaramada midoobay ka socda oo amniga Soomaaliya loo xilsaaro oo kale. ciidan habkaasi u howlgala oo Falastiiniyiinta amnigoodii xil iska saara iyo difaaca dhulkoodii iyo guud ahaanba bariga dhexe ayaa la aasaasi doonaa. Dhinacana ciidankani waxaa loo shabihi karaa fardoolayda macbadka. fardoolayda macbadku waxa ay ahaayeen askar wadaado oo Kirishtaan ah oo dadka Masiixiyiinta badbaadadoodii ka shaqeeya, gaar ahaan dhulka bariga dhexe ilaa Yurub ayayna ka shaqayn jireen. ciidan noocani oo kale ah oo ka madax bannaan dowlad gaar ah in la sameeyo Yahuuda ma ay noqon doonto wax ay ku faraxdo. Tusaale, bariga dhexe sida Suuriya, dowlad walba ayaa halkaa iskeedii u imaaday. dowlado kala duwan sida Faransiiska, Ruushka, Maraykanka, Turkiga iyo dowlado kaleba iyaga oo ku marmarsiyoonaya in argagixiso ay la dagaalamayaan ayuu halkaa qof walba manfacadiisii uu ka raadsanayaa. dowlad gaar ah in ciidankeedii hadda Falastiin ama dhacdooyinka hadda taagan in ciidan ay ugu deeqdo ama ay wax u dirto, waxba Falastiiniyiintu uma ay kordhinayso.
beddelkeeda buuqa iyo dagaalka ayaaba laga yaabaa in ay sii kordhiso. Waxaaba halkaa ka qarxi kara problem kale oo cusub. Waddada keliya ee xal loogu keeni karo Falastiiniyiintu waa aasaasida ciidan noocani oo kale ah oo Qaramada Midoobay ka socda. Ciidankani ma muslimiin oo keliya oo ka sharciyeysan dhanka iyo Qaramada Midoobay miyuu noqon doonaa, ama waa ciidan isku dhex jira? Waqti xaadankani in la saadaaliyo aad ayay u adag tahay. Marka ciidan noocani oo kale la aasaasana, Israa'iil aad ayay u dhibsan doontaa. Laakiin adduunka ayaa ku qasbayo in dadkani dhagaxa ku dagaalama ee hubka aanan haysan in dhexdoodii ciidan nabadoon ah in la soo dhex dhigo. ciidankani kadib si tartiib ah dunida muslimiinta inteedii kale oo weli aanan baraarugsaneyn iyo siyaasiyiintuba waxay arki doonaan in cadowgoodii mid uu yahay. waxaana sida tilaabo muslimiintu ay bilaabi doonaan in ay midoobaan ama ururo gaar ah ay samaystaan. tilaabooyinkani marka ay muslimiintu ay qaadayaanna waxa ay si gaar ah iska ilaalin doonaan wax walba ee galbeedku u yaqaano xagjirnimo ama adayg, iyada oo sharciyada caalamiga ah la raacayo ayaa isla systemkoodii quful ku noqon doona. tanina waa saadaasha khubarada boqolkiiba 90 waxay u badan tahay in la samayn doono. laakiin wax walba degdeg maadaama aysan ku suurtoobayn qiirada xaddhaafka ah ee ka fiirsiga aanan lahaynna, qofka maadaama qarka ay ka tuuri karta muslimiinta si caqligala tartiib qorshahani habkay u fulin lahaayeen ayay gudagali doonaan bilooyinkani soo socda. dad badan marka ay social mediaha ay ka arkaan ciyaalka yaryarka ee Israa'iil ay dilayso si degdega qiiro iyo xanaaq ayaa ku dhashta, waxa ayna durba jeclaadaan in dowladaha muslimiinta ciidan iyo diyaarado in halka ay geeso Israa'iilna ay ka celiso. ficil ahaan tani waa mid mudan in la sameeyo, laakiin borotokoolka dowladnimada waa mamnuuc in waddan diyaarado uu ka soo kaxaysto waddankiisa si toos ah waddan kale ama Israa'iil uu ku duulo. labada waddan ee dagaalka uu ka dhaxeeyo wixii qarsoodi ah ee taageero ama hub ama lacaga si qarsoodi ah dowlad waa ay u siin kartaa, maadaama dowlad askar iyo diyaarado si toos ah dowlad kale aysan u geli karin. tani waxa ay dibdhigaysaa gargaarka degdega ah ee Falastiiniyiintu ay u baahan yihiin. waana halka dad badan ay dhahaan muslimiinta maskaxda ayaa laga haystaa ama ma ay doonayaan walaalahoodii Falastiiniyiinta inay u gargaaraan. ururka Xamaas ee hadda boqolaalka gantaal Israa'iil ku soo tuuraya Maraykanka, Joe Biden waxa uu leeyahay wadamo badan oo islaam ah ayaa ururkani taageero uu ka helayaa, weliba si qarsoodi ah. weligeedii ma dhicin Xamaas oo saacado gudaheedii boqolaal gantaal oo isdabajoog ah in ay soo dirto. warbaahinta Israa'iil 1000 gantaal ayaa la inagu soo tuuray ayay qortay. ururkani iyo wadamada muslimiinta guud ahaan caalamka waxa ay muujinayaan hadda qalbi ahaan in Falastiiniyiinta ay u baahan yihiin in la garab istaago. dowladuhuna si qarsoodi ah wixii ay ku caawin karaan dhinacoodii ayay ka wadaan, iyada oo dhinacna xalinta problemkan sharciyada guud ee caalamka loo marayo. haddaba muslimiinta in ay bilaabaan dhaqdhaqaaqa aasaasitaanka ciidan nabadda dib ugu soo celiyay bariga dhexe, amniga Falastiinna suga. maanta boqolaal muslimiina ayaa waxa ay la tahay wax riyaah oo marnaba aanan dhici karin. laakiin xaqiiqada jirta ayaa muslimiinta ku qasbi doonta in si degdeg ah ciidan ay u aasaasaan. ciidankanina inta uu Qaramada Midoobay uu ku xiran yahay dowlad galbeed ah oo hadal ka keeni karta ma ay jirto. kaliya waxa ay ku qasbanaan doonaan dowladaha galbeedka in Israa'iil ay sabarsiiyaan. adiguse qiyaastani aasaasitaanka ciidamo gaar ah oo Falastiiniyiinta difaaca amniga bariga dhexana suga, sidee ayaad u aragtaa in muslimiintu ay aasaasaan? ma isleedahay qiyaastani sida aan kuu soo sheegay way u dhici kartaa?